لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ولا ليال إلهي تبارك وتعالى أيها الرئيسية دنبي سبا مهد اسكاله الله ينوس يرتقليي كلن كان يعباددا يجمعا يجمعا ينكو كلني، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ويحوجين يحيلدين معها ووافجين إلهي. وحكلوا إنه هاد نقينا وإنه سود ويننا وجمعة مانتا إن جلس وقيب قلي، ولكن محمد مبارك ومحمد بيك يا أدمركي ورو تقانين إسقنا وإنه سود ويننا إله وافجي طريق الصحدة وعكت سارينا إلهنا وإنه هاد نقينا isagana dhiiranaantaas iyo go'aan qaadashadaas uu go'aanka qaatay ee mar walba farxadda walaalihii la wadaagayo si gaar ah ugu mahadinaynaa. dad fara badan baa waxaan heesaha iyo muusikada ka hadhay, laakiin waxaan isaga si gaar ah runtii ugu dhiirigelinayaa, uguna ducaynayaa, uguna mahadnaqayaa dhiiranaantaas iyo go'aanka cad ee caad ku saarayn ee maxaafisha iyo golayaasha caamka iyo masaajidada uu ka muujinayo si waxa weeyaan looguna duceeyo walaaladeenna kale ka dambeeyana ay ugu daydaan ee runtii waa wax weyn. waxaan xasuusanahay muddo ka hor ayaa waxaan dhageystay muuqaal uu soo duubay nin la oran jiray markii hore Axmed Biif, imikana Axmed Khayr la yiraahdo, daayirtiya dhalinyartu u khudbadeynay ina kaasi oohin iyo ilmo uu hadli kari lahaa. wallahi alladhi la ilaha ghayruhu intaan dhageysanaya anoo oohinta waan ku daray. sababtu waxay ahayd isagoo ka damqanayo ka tiraayay wuxuu soo maray iyo ilaahay sidoo karaameeyay iyo khayrka iyo jannada uu helay cagta uu galiyay, farxadda uu dareemayo iyo wanaaga uu markaa ku jiro iyo wuxuu hore u soo maray. dareenkaas ku kalifay indhihiisa ilmadii inuu haysan kari waayo, aniguna aan dhageysan kari waayo. horta walaalkay Maxamed Mubaarak ilaahay ha barakeeyo, waan ugu ducaynaynaa. waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku weydiisanayaa magacaantiisa wanaagsan iyo sifaadkiisa sare. walaalkeen xaqa iyo dariiqa toosan uu doortay Allah ku sugo, ilaahay ha ku sugo, ilaahay ha ku sugo, Allah ha u ziyaadiyo. kuwa ka dambeeyana ilaahay dariiqa uu tusay iyagana Allah ha tuso. walaalkeen wuxuu ka soo baxay ee uu ka toobad keenay wax xun buu ahayo ilaahay ka soo saaray, khayrna waa soo galay. waxaynu ilaahay u weydiinaynaa wax ka wanaagsan rabbi inuu ugu bedelo diin iyo dunyaba. wax ka wanaagsan Allah ugu bedelo, ilaahay wax ka wanaagsan diin iyo dunyaba rabbi ha ugu bedelo. walaalkeen ducada kadib waxaan ka codsanayaa Maxamed Mubaarakow, carabkaagii iyo afkii wanaagsanaaye ilaahay kugu arsaaqay ee laga yaabo in fara badan wax kale inay ka soo baxeen. horta wixii hore oo dhan dadka inaad ogeysiisood kuna dadaasho in la masaxo, inta noloshaada ka hadhayna nicmadu rabbi ku siiyay inaad quraanka geliso, inaad diinta geliso, inaad u fariisato. in badan aanu aragna Maxamed Mubaarak oo ku luuqaynaya hadalka ilaahay jalla jalaaluhu, inaan aragno Maxamed Mubaarak oo halka mixraabka nagu tukanaya quraanka rabbi oo qalbigayga nagu qoynaya. taasaan ilaahayna ka rajaynaynaa, adigana aan kugu waaninaynaa. masaajidkeena rashiid waanu kugu soo dhawaynaynaa. gelinka hore dowra ka socota, habeenkii casharaha ka socda, hadiya habeen waxba lagu bartaa. waqtigaagii badnaa inaad wax kamida diinta u jarto, macallimiin gaar ah hadaad u baahato waanu ku diyaar garaynaynaa. inaad quraanka fahamkiisa, alfaadiisa, macaanidiisa aad waqti badan geliso ayaanu rajaynaynaa. kulligeen dad muslimiin aan wada ahayn, kuwa shayaadiinta ah ee ka dhigaya Maxamed in imika la musliminayana waxaanu leenahay Maxamed Mubaarak horeysiya dambaysaba muslim buu ahaa. idinka laftiina kuwa fanka ku jira muslimiin baan idin aaminsanahay, gaala ma tihidin, laakiin muslim dambaabuun baa too lagu leeyahay war dambiga ka soo noqo. waxaan leenahay Maxamedna kuwa waxba dhaka u dhigin, xaqu xagasho badan iyo cadaawad badan buu leeyahay. nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam markii la soo saaray Khadiija intay ka xaysay Waraqa ibn Nawfal u geysay oo ahlu kitaab ahaa, ayaa markuu nabi Muhammad u waramay wuxuu arkay waa bilowgii waxiga ee uu gartay Waraqa in nabi Muhammad la soo diro waxyigii uu yahay. wuxuu yiri lam yaati ahad bimithli ma jiita bihi illa uudi. wuxuu yiri Muhammadow waxaad la timid cid horta lama iman ilaa waa la colaytay u diyaar garow, waa diyaar garow. marka Maxamed waxaynu leenahay qof kastoo tubta toosan iyo dariiqa xaq qaada
cadaawad badan buu la kulmayaa dacaayad badan buu la kulmayaa dheg jalaq hawsin waxaanad aamintaa ood ku qalbi qabowdaa ilaahay markuu tilmaamay cadaawadda ambiyada wuxuu ku gabagabeeyo uu yidhi wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan min almujrimiin nebi kasta waxaan uu yeelay kuwa cadow oo mujrimiin oo xumafalayaala waa kuwa shaqada shaydaanka haya laakiin waxaad kaga bogsataa ood kaga aamin noqotaa wakafaa birabbika haadiyan wanasiira waxaa lagu gabagabeeyey nebi moxamedow ilaahay baa kuwaa kaaga filan ku hanooninaya kuu hiilinaya maxamed mubaarago waxaanu ku leenahay wakafaa birabbika haadiyan wanasiira hadday hadalka kugu badiyaan rabbi baa kugu filan oo sharkooda kaa kaafinaya u adkayso wakhtigaagana qur'aanka iyo diinta geli waanu ku soo dhowaynaynaa waananu ku ducaynaynaa adiguna wixii waana ah walaaladaa la wadaag allah ku barakeeyo baaraka allahu fiika ya mubaarak بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي بمهد سكله أدبان دي السلام يا شيخ دمي هذا الكي إذن كنا دعاء يقدر أنتي هسهيجا dhageysan jirtayna hay iska deyso meesha ku aragtaan ee mobilka ay ku jiraan iska saara ma sha Allah balanta sheekhu uu qaaday inaan ku akhriyo quraanka codkaygii waan ballan qaaday ma sha Allah goobo culimadu ku muxaadareysana inaan xoogayga geliyo waan u soo feeytay ma sha Allah khayrkana waan u soo banbaxay ducada igu dara ma sha Allah jazakallahu khayr Allah kugu sugo Allah ku rumeeyo جزاك الله خيرا وبارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته